waxaan halkan maanta shir jiraad ugu qabanaynaa aniga oo ku hadlaya afka dalada midnimo ay ku bohoobeen dhammaan dadka ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Banaadir anigoo ah gudoomiyaha dalada saan hore u sheegnay waxaanu magacawnay guddi qaban qaabo mudaharaad ka dhan ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Khadar oo runtii saad la socotaanba tabashada iyo cabashooyinka ay dadka deegaanada ka soo jeeda haday tahay mid doorasho haday tahay mid saami qaybsi iyo haday tahay mid awood qaybsiba 5 sanadood soo socotay laakiin habayraata cid jalaqsiisa aan jirin saa darteed daladu iyo xubnaha memberka ka waxaan golaha dhexe iyo dhammaan odayaasha dhalinyarada haweenka iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan haddaba maanta waxaan doonaynaa in halkan lagu kaliftay saacadan la shir jiraad qabano waxa jirtay inaanu hore u taageernay shirkii ay dhammaan loogu baaqay bulshada gobolka Banaadir isla markaana wasiirka wasaaradda amnigu uu ku bixiyay ogolaanshiyaha isla markaana isagoo oo qeexay kuna celceliyay mar walbaba in ogolaanshiyaha way xor u yihiin diiniyan iyo sharciyan iyo dastuuriyanba oo qodobka 22aad ee dastuurku uu ogolaanayo muwaadin kastaba inuu fikirkiisa cabiro banaan baxo taas oo aan habeeraad loo baahnayn wax ogolaanshiya madaxa meel ka sareysa ma jirto wasiirka wasaaradda amnigu wuxuu ogolaaday in bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir siyaasiyiintooda iyo bulshadooda ay ogolaanshiyo u siiyo annagu waxaan ka mid nahay bulshada gobolka Banaadir waxaan ka mid nahay dadka xaq u leh ama asalka u ah maanta gobolka Banaadir degmo doorashadoodu tahay annaga degmo doorashadeedu Hargeysa maaha Burcana maaha Booramana maaha Garowana maaha Dhuusamareebna maaha Baydhabo maaha degmo doorashadeedu waa Banaadir annaga iyo beelaha kale aan walaalaha nahay Banaadiriga runtii waxaan nahay dadka kaliya ee xaq u leh runtii tabashada iyo cabashada dhibta qaba cidi dhageysan weyday cidi ka hoos qaadi weyday isla markaana shirkii madasha lagu magacaabay madasha wada tashiga qaran ee annaga iyo beelahaas baanu ka maqnayn lagu sheegay oo runtii mabda'aygan hore aan u sheegnay inaanan qaybna ka ahayn cidina laga soo qayb gelin haddana in maanta waxaan ognahay oo aan xog ku haynaa rasmi ah in xubnaha boardka ku taswiirtoodu ay ku xarran tahay ay la faqayaan wasiirka wasaaradda amniga Mahdi Guuleed Khadar uu ka yahay hogaaminayo iyaga oo si gaar ah ula faqaya waxay ku faqeen laba qof oo afka iyo dhigtaysi saaray Allahu a'lam laakiin waxaan u sheegaynaa Cabdilaahi Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda amniga xildhibaankayaga saaxiibkayo haddii aad arintaas anagu waxaan cayimaynaa oo aan astaynaynaa maanta anigoo ku hadlaya dhammaan afka gobolada waqooyi isniinta 17 bisha mudaharaad baanu qabanaynaa ka dhanaan Mahdi Guuleed iyo xubnaha weheliya waanu qabanaynaa isniinta 9 saac waxaan ugu baqaynaa bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ka soo jeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo walaalaha kale reer Banaadir sida anagu aan idinku taageernay banaanbixinii saan hore idinku taageernay markaad baajiseen dhalinyaradii reer waqooyiga reer Hargeysa xubnaha ka ahaa ururka waad ogeydeen waa ku mudaharaaday dalshirka Daasoon ilaa Villa Soomaaliya waad ogtihiin waxay sababeen Villa Soomaaliya in 2 mitir darbigeeda lagu daro taarna lagu xidho ragga anagu ma safaadno mana kaftano barnaamijka waanu sameeynaa waa mid dastuuriya waxaynu ogaan doonaa inaanu la xaqnahay inaanu nahay dadka xaqa ku leh dalka iyo inaanu nahay laajiin marka kaayaga la hor istaago Cabdilaahi Nuurna uu ka ay wataan qoyskiisu ama reer koonfureed uu ogolaado markaas inay eegi doonaa